قصة قرية إيدا عليا قرية إيدا ساق معلومات تقول شو وياه قرية إيدا إن أذانو ساق قبصو قرية إيدا ورنمكي عبادوين تها ورنمكي أرجع حسدا حاكو دعي إنا لله وإنا إليه راجعون ورهرتي سوى حودان ورنول بهانتو أبتيال سوى حودان عبادوين تي أرجع حسدا وير بيسوق هذا لكن تكون دعضي ور إلا الحبسية ذا السمينية وحباس سعودي فردية وحنا نقضي ذو القرنين nimankana waxay noqdeen yaajuuj waa maajuuj haddaan naxaas lagu xidhin oo sidaa loo qabanna oo jeera loo samayna sidii dulqarnayn iyo yaajuuj waa maajuuj laga nasan maayo bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed goob kasta iyo goorkasta joogtaan waa barnaamijkeena iftiiminta xaqiiqooyinka oo ilmaada isku dul taagayno lama arag iyo lama maqal iyo lagama sheekeeyaan baa ku dhacday nimankii cabaadweynta argagixisada snm oo weerar soo qaaday waxaa cajiib ah ومن سبحان الله يا نفركي أرجع حسدا SNM عباد وين تي صوت دجال تكتي وحكي قيمة بطي قرية آكها ورد بهانتم أبتيال سوي حوضان وريل ماذر هيال ورد بهانتم سدوا حوضان ما بيل رمضان لوجرين ذاتك إن الله تروح أو حوي وحيالها قارك إن ماذر هيال ويد سدي قفكي أرضي يبو إذا كو أرضي يبغى جوارد وقفكي كلا دقيسان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم maxaa soo doonteen argagixisooy abaad weyn maxaa soo raadiseen maxaa idinka soo horreeyay waa yaabana markii firdhiyo uu sameynayay jeelasha oo lahaa waxaan arki jiray maamul baan arki jiray iskuul dalbada maamul baan arki jiray isbitaal hal loo dhisay yiraahdo ninkii firdhiyo ahaa oo jeelal dhisaya baan arkay waxa la yiri nimankii yaajuuj waa maajuuj loola jiray dulqarnayn ilaahay u soo diray markii ummadii fasahaadiyeen oo ummadii waxa weeye dalkii iyo dadkii fasahaad ka dhigeen baa ilaahay dulqarnayn u soo diray nimankan maartay halka jooga ee la faashita ilaahay subxaanahu wa ta'aala al-firdiyani liyaado iyo niman daraawish liyaada ilaahay u diray sanadka maanta booski yaajuuj waa maajuuj bay galeen macnaha quraanku ma lagu sheegine booski yaajuuj iyo maajuuj bay galeen yuk iyo yamaanyuk booskoodii bay galeen firdiyana dulqarnayn buu ku noqday xabsiyo buu u dhisayaaba waxa la yiri dulqarnayn laba buurood dhexdoodu buusa ugu dhadhaabay baa oo naxaasa u mariyay firdhiyana wuxuu rabaa cabaad weyntan hargeysa iyo burco ka soo baroonaysa inuu jeelal u sameeyo deedna halka uu ku naxaasa buu doonayay barnaamijku haduu soo gaaro si shar garay bil ramadaan weeye rabadaanada iyo iidaha iyo jimcayaasha iyo iyadoo la tukanayo mooyaane nimankaasi dhaqan kale oo ay leeyihiin ma jirto u fiirso wax allaale waxay dagaal ku faanaan eegi ama waa dad erga oo ay laayeen ama waa dad waxa weeye masaajid ku jiro oo ay laayeen wallahi waxa lagu yiri xudun qof yar baa hadii aanu ma garan kara ma garat laakiin xudun maalinkii soo galiyeen oo waxa weeye ay ragga badan ku leynayeen maalin jimcaha oo iida bay ahayd oo ilaahay kaga sareeya xudun maalinkii soo galeen iid bay ahayd jimcayna ahayd iyadoo salaad lagu jiro eegi jimcay iid isa saaran maanku way xudun soo galeen markaasay maatadii laayeen oo rag masaajidada ku jiraan yaa weey waa inay kaahin kariiday muuse juudaan iyo argagixisada SNM ilaa faashidada iyagay haayeen jabhadii SNM baa soo gashay xudun waa jimce iid ah markaasay inta saa dadkii wixii gacanta marin kareen labada cagood wax ka dayan carareen igilada qoora taag oo ay ka sheekeeyaan rag baan ku leeynay waa rag erga ah oo iyagu bariyeen waliba calan cad inta taageen abtiyaalow aan isnabad gelino ehel baynu nahay rag baa loo xulay erga ah waxa la yidhi annagana 70 nin ma laga soo baxay yidhi kuna 70 nin waxa weeye erga halkaas waxa weeye dhul baahantay isaaq lagu wada hadlo aynu heshiin ragii bay xagga baroonta kala mareen bay laayeen waa ku faanaan jiglada qoora taag wanaga raggan waa ergo xudun baan rag ku laanay waa maalin jimcaha maantana iyadoo jimcaha oo bil ramadaana bay weerar soo qaadeen maxaa ka dhacay bal ila daawo nimankii dhul bahantee oo aan dhag la qabta lahayn inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxaan maqli jiray waxaas waa haadka adag baan maqli jiray haadka adag war adigu qof cararaya ma aragtay nin qorigii gacanta ku siita oo naftiisa iyo qorigiisa lagu gorgortamayo laba nin baa xuleeyeen qoriga isaga qaada buu leeyahay qoriga labada nin ee ninka isku haysta qori dhishike baa ku foorara ma arkaan ilaahay bay ka tahay qorigaas nimanka u muuqda kadibna waxay rabaan dhuunta qoriga kan ka qaadaan inay dhuunta ku soo qabsadaan
nimankii cabaad weynta maxaa la tus war nimankii cabaad weynta maxaa la tus war nimankii cabaad weynta maxaa la tus qiyaamahoodii baa adduunka lagu soo saaray bal hadda eegi إلا لله وإلا إليه راجعون إلى adeer isaga qaabso buu leeyahay isaga qaado ariga qorigayda isaga joogi waayay bisha ramadaane cabaad weyntii way soo abaabuleen waxa la yiri buuq dharkeen baynu qabsanaynaa haye wax allaaliya waxay haysteen hub iyo ciidan bay soo melmeleen wiilal harti ah oo indhuhu cascas yihiin oo habeen iyo maalin saxan oo raamaystay oo geed gaabanbu u fuushan macnaha argagixisada SNM inay dhegta dhiiga u daraan oo difaacooda ku jira bay afka ka galeen wuxuu yiri Said Cabdulla Xasan juq waxaan u soo yiri dugaag kala buteynaya juq bay u soo yiraahdeen aarar meel fadhiya eegay raxan libaax meel fadhiday afka ka soo galeen tii ka dhacday maanta ka dhacday baan ku wixii hore been jeelashan la dhishayo iyo xabsiyadan firdhiye dulqarnayn baan u bixiyaan firdhiye dulqarnayn baan u bixiyay dulqarnayn madaxweynahan dulqarnayn ee firdhiye xabsiyadu dhisay macayaar ba haysateen ummaddu iskuulay dalbataa jaamacaday dalbataa cisbitaalay dalbataa meel waxa weeye farsamo gacan bay dalbataa dhulbahaanta wuxuu dalbaday iyo firdhiye dulqarnayn jeelal buu dalbaday jeelkii Afrika ugu weynaa baa la saacadood laga dhisaya cid kale lagu guri maayo nimanka ay door baa lagu guraya iyo halkaas soo socda ee la faahashita baa lagu guraya dulqarnayn wuxuu ku tala galay inaan qof dambe oo iidoor ah oo Soomaali wax ka go'ayo Soomaali ma jirto iyo laalan inaan dib loo arag naxaas inuu saa ugu daboolo jeelkii ugu weynaa Afrika oo hoosna u qodan korna loo dhisay baa la saacadood gobolka soo laga dhisay doodida aad maqasheen xabsi baa qabsanaya Guantanamo iyo waxaas qarsay noqonaya Yaajuuj waa Maajuuj xabsigii lagu guray oo kala nimanka rabaa in lagu guro dagaal bay soo qaadeen waa bil Ramadaan soo horeeyay kuma sheegin nimankani iidaha iyo Ramadaanta iyo ijmaacayaasha iyo alla bariga iyo dadku markay tukanayaan iyo markay Ilaahay la bariyo markay sabadu furan tahay waa shayaadiin waxana waa shayaadiin insi maaha argagixisada SNM insi maaha waa shayaadiin weligaa nimankaas oo inta rag iska hor yimaadeen food istareen toos ula dagaalamay arkimis salaad adoo ku jira bay halka dhuglaha ugu dhufanayaan adoo gacmaha Ilaahay kor u taagay baan ku ri waxa xagga dambe kaaga xitaa wajahada kaaga iman maayo xagga dambe ergahan hada ugu tagtan inta soo jaraya dagaalkaas ay soo qaadeen maxaabiistu waa tirabeel sidii caadada ahayd maxaabiistu iyadoo aan xabsigii la dhameystirin hadda la dhagax dhigay Yaajuuj waa Maajuuj xabsigii lagu xidhi lahaa hadda la dhagax dhigay iyadoo hadda la dhagax dhigay maanta 40 baa la hayaa nolosha lagu soo qabtay waadna aragtaan dee inaadeero qorigayda adu qofka qaade baa la leeyahay argagixisada SNM ninka argagixisada SNM ee cabaad weynta waxa ka qiimo badan qoriga aakaha waa sii yaacaysaan waa soo yaacaysaan horaan idinku sheegay kun labada orod kala daaya ama orodka hore daaya ama orodka dambe daaya mid kale meedan Ramadaan meedan dad muslim ahayn dad islaam ashaata meedan ahayn ma diin kala haysataan meedan Ramadaan ahayn wixii aan idinku sheegi jiray ee ummadda Soomaaliyeed la yaabaneed maanta dadka Soomaaliyeed soo idima arkin bil Ramadaan soo weerar meedan soo qaaday boqdarkeen baanu soo qabanayna boqdarkeen iska daa walahay qurulugud baadan joogin oo caynamaada joogin qof Ilaahay yaqaan ma tiid Ramadaan yaqaan ma tiid jimca yaqaan ma tiid iidaha iyo jimcayaasha iyo saacadaha samadu furan tahay Ilaahay la bariyo shaydaan inaad tahay musujuudaan iyo ina kaahin iyo odagan xabka ay meesha fadhiya argagixisada ee sanamay inaad shayaadiintiin maxaa iidaha iyo jimcayaasha dadku soo gaadaan ka dheefadee afartan nolosha lagu hayaa meedkooduna waa kashkaash sida uu leeyahay qoriga iida ninka qaado baa ka sala bal hadda eegi ilaahu dhag la qabta leeyahay ninkaas waxa u muuqdo qoriga waa yaacayaan saas u yaacayaan wiilashii daraawishta baa bacsanaya kale ee bacsanaya dhuunta ma arko kan ka dambeeya baa arka oo miir qaba kan kale miirba ma qabo ninka iyo qoriga u muuqdo isla culeeyo ninka qaado oo
qorigeyda ninka madaxa ku dhufa haddaad doonto aniga ninka qorigeydaa buu leeyahay halkaana dhuun baa kaga soo dhacaysa dhuuntaasi qorigaa markay gacanta ku dhigaan dhuuntaana waa qabsanaya maxaad soo doonteen marka maxaad soo raadiseen idinka soo horeeyey bisha ramadaan inta ramadaan dhammaanayso xitaa mana sugu weydin idinkaana soo doontay wallaahi bilaahi tallaahi idinkaan cagihiina nagu soo raadsaday wixii halkaa idinkaga dhintana waa ehlo naar naarta kabaha la idinkaga bixin maayo sawaabil ramadaan idinkaa buuq noo soo doontay qodobkayga labaad buuhoodle buuq badan baa ka baxaya niman la yiri culimo waa culimo oo koofiyad baclayaal ah baa la sheegayay oo xirsigaab iyo riwaayado iyo sheeko yar caanteyn oo niica buuhoodle ka socota reer buuhoodlow talaa meel la dhigtay harti waa tashaday dhulbahantana waa tashaday harti waa tashaday siiba dhulbahanta waa sii tashaday talaana meel taallay reer buuhoodlow koofiyad baclayaasha iimaan laawayaasha ee culimada isku sheegaya ee daalimiinta xirsigaab u socda haddaad jawaab waafiya ka keeni weydaan ogaada nimanka daalimiinta ah ee koofiyad baclayaasha ee culimada isku sheegayay diinta ilaahay ka been sheegayay nahaabinta horgalada ah wallaahi bilaahi tallaahi gacan harti waa ku dhacaysa gariye magla bay noqonayaan haddaad qaban weydaan reer buuhoodlow oo weliba reer hawdow haddaad isqaban weydaan oo nimanka daalimiinta ee buuhoodle ka baxaya ee culimada sheeganaya xirsigaab u socda haddaad waxa weeye aad gacan saari weydaan oo aad meel saari weydaan wallaahi bilaahi tallaahi gacan loo dhan yahay baa ku dhacaysa gacan loo dhan yahay baa ku dhacaysa nimankani qadiyadoodu waa ka go'an tahay shiikhooda iyo shariifkooda iyo wadaadkooda iyo caalimkooda iyo dibjirkooda iyo siyaasigoodu waxaa ka go'an wax la yidhahdo somaliland iyo soomaali nacayb odaygii waxa weeye reer buuhoodlaa halkaa ka baxaa ee waxa weeye xirsigaab iyo riwaayado iyo sheeko yaro niica ka baxa buuhoodle yuu dib ugu soo noqon buuhoodle yuu dib ugu soo noqon dalkuna maamul buu leeyahay deegaanku maamul buu leeyahay madaxweynuu leeyahay madaxweyne ku-xigeen buu leeyahay dowlad buu leeyahay oday yaroo koofiyad bacla ah oo iimaan laawo ah oo afarta qablo balka ka halkaa laamiga ku dhuftay oo iska carara adeer waa waxa ishaa noo yeela weeye qadiyadanna kun wiil baa ku maqan eegi reer buuhoodlow intaa dhaama baad ahaydeen anu ma garanayo meel laydinka helay dad intaa dhaama baad ahaydeen maalinka ku xiga warcad baa laydinka fadhiya nimankaasoo sida shilinka saa aad u warsheelayseen oo barxadda buuhoodle yaalla oo biyo lagu dhaaminayo inaad muuqaala ka duubtaan iyo inaanay idinku soo noqon anu ma garanayo horgalnimada cusub ee buuhoodle ka bilaabatay meladeegi wixii la ogaa dadka soo maray leeyahay culimaa baxday niman culimana maaha cadaabta allaha ku fogeeye kuwaase waxma idiin sheega reer buuhoodlow ilaahay haddaad garanaysaan nimankaa naga qabta shacabka guuto koobaad oo buuhoodle ka kacday oo si fiican waxa weeye magaalada u kala xidhay oo shucuurtooda muujisayna halkanaan uga hambalyeynaya guuto koobaad dad la hor istaagi kara maaha baan ku buuhoodle waa kala xidhantay eegay aad iyo aad baad u mahadsantihiin saas shucuurtiina iyo waxa weeye damiirkiina inuu nool yahay aad u muujiseen mas-uuliyiinta reer buuhoodle iyo maamulka khaatum waxaan leeyahay shaqo qaran ha laga qabto shaqo waafiya ha laga qabto odayaasha koofiyad baclayaasha ee waxa weeye horgalnimada cusub hadda bilaabaya war khayr iyo barakaad rajaynaya cabaad weynay idinkaana soo doontay rabadaan baydan istaagayn iid baydan istaagayn maalin jimcayn istaagayn maalinkan noo timaadaana labada dhagood baanu jaraynaa anagu daalimiin baa tahay jeel weynna waa idiin samaynaya yaajuuj waa maajuujow yuug iyo yamaanyuugu jeel weyn baanu idiin samaynaynaa iyo naxaas aan ummadda soomaaliyeed idinkaga qabanno war khayr iyo barakaad rajaynaya barnaamijkaasi sheergaray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu